السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bulshada sharafta mudan ee ku xidhan channelka maalmaal soo dhawaada. Waa xalqadii 15aad ee taxanaha kun habeen iyo habeen. Haddii ay tahay markii koowaad ee channelkan soo boqonayso, fadlan subscribe ka taabo, like tana saar, kambalada kana daaro si ay ku soo gaaraan muuqaaladeeda cusub anigana ay dhiirigelin ugu noqoto. Iminkana daawasho wacan. xalqadii hore waxa ay noo mareysay iyada oo ninkii weydiiyay Sindibaad xaalkiisa iyo sida uu halkan ku yimi. Sindibaadna uu uga warramay. habeenkii xigay Shahrazad sheekadii halkii ay ka sii ambaqaaday iyada oo tiri Sindibaad waxa uu yiri markii aan qisadeeda u dhameeyay ayaan ku uri sayidi Allaan kugu dhaariyay adigoo aan xumaan u arkaynin anigu waan kuu sheegay dhammaan wixii aan la soo kulmay. waxaan jeclaan lahaa oo aan kaa sugayaa inaad adiguna ii sheegto waxa ku qabsaday iyo sababta aad halkan u joogtid iyo sababta uu farasku ugu xidhan yahay xeebta. markaas ayuu ugu yiri aniga kaaga sheekeynayay dhigeyso. wuxuuna hadalkiisa ku bilaabay anagu waxaanu nahay koox jasiiradan ku hareeraysan, waxaanu nahay dadka boqorka u qaabilsan bandhigyada iyo arrimo kale. waxa gacanteeda ku jira dhammaan fardaha boqorka. birkastana markuu dayaxu soo baxo ayaanu soo qabanaa geenyo, waxaanan ku xidhnaa jasiiradan, kadibna waanu dhuumanaa si aan naloo arkin. waxaa markaa yimaada faras badeed, waxaanu u yimaadaa geenyada xeebta ku xidhan. wuu ka xaajo gutaa, kadibna wuxuu isku dayaa inuu ka haysto, balse wuu awoodi waayaa sababtoo ah xadhig ayaa ku xidhan. markaas ayuu bilaabaa inuu qayliyo. annaguna qayladiisa marka aanu maqalno waxa aanu ogaanaa in faras badeedkii soo baxay. kadib waanu soo baxnaa annaguna oo dhankiisa ayaanu soo aadnaa. markuu annagana arko ayuu baqaa, kadibna baddiisa ayuu ku laabtaa. annaguna geenyada ayaanu soo kaxaynaa. geenyadaasi waxa ay qaadaa uur, waxaanay dhashaa faras yar oo aanay jirin lacag goysaa, waana mid aad u qaali ah. haddana waxaa la gaadhay waqtigii uu faras badeedku soo bixi lahaa. waxaan rajaynayaa in sida aanu rabno ay wax u dhacaan, weliba adigana aanu boqorka kuu geyno. waxaanad ogaataa inaad tahay mid nasiib badan, waayo haddii aan halkan annaga nagula kulmi lahayn meeshan ayaad ku dhiman lahayd, sababtoo ah jasiiradani waa lama degaan oo cidna kuma noolaa. markaas ayaanu mahad celiyey una duceeyey. anoo halkii jooga ayaa faraskii badda ka soo muuqday, wuuna qayliyey qaylo badan. kadib waxa uu isku dayey inuu geenyada ka haysto, balse wuu awoodi waayey. markaas ayuu ninkii qaatay seef uu watay, wuxuuna ku cararay dhankii faras badeedka isaga oo qaylinaya. ninkuna wuxuu seeftiisa ku garaacayay gaashaankiisa. waxaa sidoo kale hoggii ka soo baxay kooxo kale oo warmayaguna wata oo iyaguna qaylinaya. markaas ayuu faras badeedkii argagaxay, baddiina uu dib ugu noqday. nimankii kale ayaa soo wada baxay iyadoo mid kastaa uu wato geenyo u goonni ah. markay arkeen ayay ninkii ila socday iga waraysteen, isaguna wuxuu uga warramay xaalkayga. markaas ayaanu fadhiisannay, waxaanan bilownay inaanu cunto aanu cunno. kadib waanu kacnay annagoo fardihii kornay, waxaananu aadnay dhankii magaalada boqorka. markii aanu magaaladii tagnay ayay boqorkii u galeen, arrinkaygiina ay uga warrameen. wuu ii wacay, waanan u tegey anoo hortiisa istaagay. waan salaamay, salaantii ayaanu iga qaaday, wuuna ii soo dhoweeyey isagoo xaalkayga iga waraystay. anna waan uga warramay xaalkayga iyo wax kastoo aan la soo kulmay. wuxuu igu yidhi waa arrin la yaab leh, balse waxaad u dhiman weyday risiq baa kuu laabnaa. kadibna wuu ii soo dhoweeyey oo wuu ii karaameeyey, wuxuuna ii siiyey shaqo, aniga oo bilaabay inaan ka howlgalo dekedda markaa la dhisaayey. waxaan ahaa mar kasta oo baxaya mid warqad u qora, boqorkana wax kasta oo u baahdo waan u qaban jiray. isaguna wuxuu ahaa mid ii roon oo wuu ii wanaajin jiray. markii dambe dowladdiisii ayuu shaga iga siiyey, hase yeeshee muddo dheer maanaan sii wada joogin. muddadii aan halkaas joogay waxaan ahaa mid ganacsato kasta oo meesha timaada ka waraysta magaalada Baqdaad hadday garanayaan iyo jihada ay naga xigto. hase yeeshee waan waayay hal qof oo ii sheega. waan la yaabay arrinkaas. sidee ku dhacday dhammaan ganacsatada meeshan timi inay garan waayeen magaalada Baqdaad? maalinkii dambe ayaan soo baxay, waxaanan u soo galay boqorkii isagoo ay agtiisa fadhiyaan koox hindi ah oo ganacsato ah. waan salaamay, salaantii ayayna iga qaadeen. kadib waanu is waraysannay. waxaa ii sheegay inay yihiin koox hindi ah, balse dhowr jinsiyadood oo kala duwan ay kala yihiin. waxaa ku jiray qaar la dhaho ashaarkiya, kuwaas oo ah kuwa jinsigooda ugu sharafta badan leh, islamarkaasna aan agtooda qofna lagu dulminin. waxaa kaloo ku jiray koox loo yaqaano albaraahima, waana qolo aan khamriga cabbin. waa dad nasiib badan oo xoolo dhaqato ah. waxayna ii sheegeen in hindidu ay u kala baxaan 72 qolo. aad baanan arrinkaa ula yaabay. waxaa kaloo aan boqortooyadaas ku soo arkay koox aljeeriyaan ah oo la dhihi jiray reer kaabil, waxayna ahaayeen kuwa habeen kasta durbaan garaaca. waxaa kaloo aan soo arkay kalluun weyn oo dherarkiisu leegyahay 200 oo dhudhun. tii ugu darneed waxay ahayd markaan arkay kalluun wejiga bolobolo uga eeg. waxaan soo arkay waxyaabo cajaa'ib ah oo haddaan ku dhaho waan kaaga wada sheekaynayaa oo waqtigu inaga dhammaanayo. jasiiradda iska joogaba maalinkii dambe waxaan arkay markab ganacsi oo dekedda ku soo xidhay. waan soo baxay, waxaanan imid dekedda sidii caadada ii ahayd. waxaanan gudagalay inaan diiwaan geliyo
rakaabka markabka saaran ee magaalada boqorka galaya iyo badeecada ay wadaanba. markii ay soo wada degeen dhammaan dadkii markabka saarnaa oo aan anigu diiwaan geliyay iyaga iyo waliba badeecadooda ayaan kabtankii markabka wadiyay waxa aan weydiiyay ma jiraa markabka qof ku hadhay ama badeecad kale oo aad wadaan. markaas ayuu naaquudihii markabku igu yidhi haa waxa markabka saaran alaab uu ka dhintay wiil miskiin ahaa waxayna markabkaa saaran tahay iminka in muddaa aniguna waxaan ehelkiisii Baqdaad ku noolaa raadinayay in badan waa intaasoo ay badeecadaas dhaxal ahaan u qaataane. markaas ayaan ku yidhi magacii wiilkaa dhintay ee badeecadda leh wuxuu igu jawaabay waxaa la yidhaahdaa Badmaax Sindibaad. markii ninka hadalkiisa aan maqlay ayaan wejigiisa si fiican u eegay mise waaba kabtankii markabkii badeecadda ii saarnayd markii jasiiraddu nala dhaqaaqday noo qaylinayay ee noo yeedhaayay. intaan qayliyay farxad darteed ayaan ku yidhi wali ma xasuustid miyaa waa anigii waa Badmaaxii Sindibaad ee markabka kula saarnaa oo alle uu badbaadiyey oo anigan waan noolahay. kolkaas ayuu intuu soo eegay ugu yidhi laa xawla walaa quwwata illaa billaah ma xoolaha dadka sidan u jeceshahay markabkaas raggii nala saarnaa badda ayaa dhammaantood liqday midna kama hadhin adna markaan kuu sheegay in alaab laga dhintay aan wado ayaa hunguri ku galay miyaa. markaas ayaan ku yidhi anoo yaaban imaqal anigu munaafiq been sheegaya ma ihi haddii aad si wanaagsan ii dhegaysatana waad fahmaysaa. waxa aan bilaabay inaan uga sheekeeyo siday wax u dhaceen oo dhan laga soo bilaabo safarkaygii Baqdaad ilaa iyo dhammaadkii. ninka markabka kabtanka ka ahi wuu fahmi lahaayay muddo sanadaah ayaa arrinka ka soo wareegtay waxaa ii sii dheeraa inaan muuqaal ahaan isbedelay iyo isagoo gabi ahaanba igu tirinayay dadkii dhintay. markii aan wixii dhacay oo dhan uga sheekeeyey laga soo bilaabo kasoo bixitaankayga magaalada Baqdaad ilaa dhammaadkii ayuu i gartay. markaasuu i soo dhoweeyey iina hambaliyey maadaama aan dhimasho ka badbaaday. kadib wuxuu ii siiyey dhammaan badeecadaydii waxaanan u tegey iyadoo sidii ay ahayd u xidhan oo aan marnaba la furin waxaanan ku wada qornaa magacayga. markaas ayaan alaabtii furay waxaanan ka soo saaray qaar ka mid a alaabtii ugu qaalisanayd ee aan waday si aan boqorkii ii sharfay ee ii karaameeyey aan hadiyad ahaan uga dhigo. waan baxay waxaanan u tegey boqorkii anigoo alaabtii hadiyad ahaan ugu geeyey. sidoo kale waxaan u sheegay markabkaa dekada taagan inuu yahay markabkii aan saarnaa badeecadayduna ay saarnayd. boqorkii arrintaa aad ayuu ula yaabay waanu garwaaqsaday in dhammaan wax kastoo aan uga sheekayn jiray ay run ahayd. markaas ayuu hadiyaddii iga guddoomay sidoo kalena hadiyado qaali ah i siiyey. kadib magaaladii ayaan badeecadii qaar ka mid ah ka iibiyey anigoo sidoo kalena alaab dhankooda ka soo iibsaday. markabkiina alaab ayaan ka soo buuxsaday si aan dhulkaygii dib ugu laabto. markii aan markabkii diyaarinay ayaan boqorkii u tegey waanan u mahad celiyey anigoo ka dalbaday inuu ii fasaxo inaan dalkaygii dib ugu noqdo wuuna ii fasaxay isaga oo ii soo sagootiyey. waanu soo baxnay waxaanan u soo safrnay magaaladeydii aan jeclaa ee Baqdaad ilaa aan ugu dambayntii nabad imi. markii aan magaalada soo galay ayay ehelkaygii soo dhoweeyeen iyagoo aad ugu faraxsan inaan nabad qabo kadib markii ay iga quusteen. markaan magaaladeedii imi ayaan iibiyey badeecadii aan watay iyo qaar ka mid ah hadiyadihii qaaliga ahaa ee boqorku ii siiyey. waxaanan iibsaday guri weyn iyo adeegayaal ii shaqeeya waxaanan bilaabay inaan nolosha magaaladayda ku raaxaysto anoo iska ilaaway wixii safar dhib ahaa ee aan soo maray. waxaan sidaas ka ahaaday in muddo ah kadib ayaan go'aansaday safarkaygii labaad. kaasi waxa uu ahaa safarkaygii koowaad iyo waxaan kala soo kulmay insha Allah bari ii kaalay waxaan kaaga sheekayn doonaa safarkaygii labaad iyo la yaabkii aan la kulmay. kadib Badmaaxii Sindibaad wuxuu habeenkaas la casheeyay xamaaligii Sindibaad markuu bixi rabayna waxa uu siiyey 100 mithqaal oo dahab ah iyadoo Sindibaadkii xamaaliga ahaa uu u mahad celiyey Badmaaxii Sindibaad iyo sidoo u sharfay. wixii la siiyey ayuuna qaatay isaga oo gurigiisii aaday isla markaasna ka fikirayay sida la yaab kale ee adduunkani meertada u yahay. markii maalinkii xigay la gaadhay ee waagii bari ayuu Sindibaadkii xamaaliga ahaa yimi gurigii Badmaaxii Sindibaad markaas ayaa la sharfay lana soo dhoweeyey. kadib markii la isku wada yimi ayaa raashinkii la keenay wayna cuneen. markii raashinkii la dhameeyey ayuu Badmaaxii Sindibaad bilaabay sheekadii iyo safarkiisii labaad. Badmaaxii Sindibaad ayaa waxa uu hadalkiisa ku bilaabay markii aan in muddo ah raaxaystay isla markaasna aan iska ilaaway dhibaatadii iyo rafaadkii iga soo maray safarkii koowaad ayay maalinkii dambe igu soo dhacday inaan mar kale safro. waxaan u xisay ganacsigii iyo hawlihii safarka sidaas awgeed si aan hantideeda u horumariyo ayaan go'aansaday inaan mar labaad safro. markaas ayaan bilaabay inaan isku soo ururiyo hantideedii oo dhan. markii aan ururiyey ayaan markab fiican oo ilaalo adag leh alaabtaydii soo saaray baddiina aan ku soo dhacnay. waxaanu safar ahaanaba oo jasiiradda ay ka dambaysay aanu ku degaynay badeecadana aan u kala wareejinaynay annagoo faa'iido fiican ka helaynay ayaa maalinkii dambe aanu ku soo dhacnay jasiirad geedo badani ay ka buuxaan. waxay ahayd jasiirad nadiif ah geedo badan oo midho macaan lehna ay ka buuxaan sidoo kale webiyaal ayaa ku yaalay. laakiin la yaabku waxa uu ahaa inay ahayd jasiirad cidla ah maadaama wax guri ah iyo raad dad toonna aanan ku arag. markaas ayaan markii joojinay oo jasiiraddii u soo daadegnay
aad baanan ula tacjabsanayn qaabka bilicsan ee jasiiraddani ay u eg tahay annagoo la yaaban quruxda uu alla jasiiraddaas siiyey iyo awooddiisaba anigu waxaan watay xoogaa cunto ah waan soo degay waxaana soo ag fadhiistay mid ka mid ah webiyadii meesha ku yaalla agtiisa waxa aan bilaabay inaan cuntadeydii iyo midhihii cuno biyihii macaanaa ee webigana cabbo markii aan cunay ayaa waxay qabatay hurdo meeshii ayaan ku gamay aniga oo seexday hurdo aad u macaan balse markii aan soo kacay oo aan hareerahayga eegay dadkii ila socday ee aan safarka ku wada jirnay qof waan ka waayay waan soo kacay oo waan soo fadhiistay anoo aad u naxsan waxaanan imi xeebtii iyo meeshii uu markabku yaallay laakiin qof ma joogin keligay ayaa jasiirad cidlo ah lagaga tegey waan argagaxay waanan isku naxay aniga oo dareemay cabsi aad u xoog badan waxa aanan noqday mid dhex jooga jasiirad cidlo ah oo aanan garanaynin bahallo iyo dugaag waxa meesha ku nool nool iyo geerikaan noqon doonana marnaba maan qiyaasan karaynin sababtoo ah maan haysanin wax shay ah iyo wax raashin ah oo aan cuno waxa aan noqday mid daalan sidoo kalena quus jooga hase yeeshee dhexda ayaan xidhay waan isadkeeyey waxa aanan bilaabay inaan jasiiraddii ku dhex socdo sidii aan u wareegayay ayaan markii dambe geed fuulay dhinacyada ayaan eegay balse waxa keliya ayaan arkayay waxay ahayd geedo biyo bir iyo dhul intaas kumaan quusana waxa aan bilaabay inaan si fiican wax u sii eego waxa aan bilaabay geedaha kuwa ugu dhaadheer inaan koro markaas ayaan arkay wax weyn oo cad oo meel ka bidhaamaya geedkii ayaan ka soo degay waxaana soo aaday wixii caddaa ee weynaa ee meesha yaallay sidaan u soo socday ugu dambayn waan soo gaadhay wuxuuna ila ekaaday sidii qubba cad oo wareegsan waxayna ahayd mid aad u dheer waxaan u soo dhowaaday qubbadii aniga oo bilaabay inaan ku wareego balse may lahayn wax albaab ah waanan awoodi waayey inaan fuulo waayo waxay ahayd mid sabiixa oo aan lahayn meel laga koro kolkaas ayaan bilaabay inaan qubbadii cabbiro waan ku soo wareegay iyadoo oo noqotay wareeg waxa aan ku fikiray qaabkii aan ku geli lahaa xilliguna waxa uu ahaa casar gaabkii anigoo weli meeshii taagan islamarkaana sidaan qubbada ku geli lahaa ka fikiraya ayuu adduunkii hal mar ila madoobaaday qorraxdiina iga qarsoontay waxaanu weliba xilligu jiilaal ayuu ahaa arrinkaasi la yaab ayuu noqday markaas ayaan madaxayga kor u soo qaaday waxaanaan soo eegay dhankii qorraxda si aan u hubiyo waxa qorraxda naga qariyey markii aan eegay waxa aan arkay waxaanan weligay xitaa maankayga gelinin waa shimbir weyn oo qaraweynadiisa aad la yaabisid waxa uu lahaa jidh aad u weyn iyo baalal xoog badan oo dhaadheer hawada sare ayuu duulayay markaas ayaan yaab afka kala taagay oo aan isweydiiyey waxani ma macquulba waxaan soo xasuustay sheeko yaraantaydii layga sheekayn jiray oo aan ka maqli jiray qaar ka mid ah badmaxyadii magaaladeeda deganaa taasoo ahayd in mid ka mid ah jasiiradaha adduunka guudkiisa ku yaalla ay joogto shimbir aad u weyn magaceedana la yidhaahdo arriikh islamarkaana carruurteeda ku quudisa maroodiyada markaasaan siri talow tani matiibaa waxaan kuusan ee meeshan yaalla ee cadina ma ukunteediiba anigoo sidii u yaaban welina meeshaydii aan ka dhaqaaqin ayuu shimbirkii soo degay waxuuna ku fadhiistay ukuntiisii isagoo oo baalashiisii ku daboolay wuu seexday isagoo aanay arkaynin markaas ayaan cumaamadeedii madaxa igu xidhnayd furay kadibna inta aan isku toosiyey ayaan ka dhigay xadhig dheer xadhigga afkiisa hore waxaan ku xidhay dhexdeeda afkiisa dambana waxa aan ku xidhay mid ka mid ah lugaha shimbirka farihiisa ku yaalla anigoo isleh waa intaas oo shimbirkini ku geeyaa ama tagaa meel bini'aadam joogo waxa aan go'aansaday inaan jasiiraddan cidlada ah aanan ku dhimanin ee aan ismidaamiyo oo aan shimbirkaa isku xidho oo uu ila duulo habeenkaasoo dhan waan soo jeeday aniga oo ka cabsanayay in shimbirku ila duulo anigoo iska hurda markii waagii baryey ayuu shimbirkii kacay markaasuu intuu ciyey hawada sare ila galay oo uu ila duulay isagoo aan weli i dareemin daruuraha marka uu ka sara maray ayuu bilaabay inuu soo dego oo dhulka u soo dhowaado waxuuna ku degay meel jooggeedu sarreeyo oo dhulka aad uga dheer oo ila ekaatay buur dheer intaan xadhiggii iska furay ayaan buurtii ku daadegay shimbirkiina mar kale ayuu dib u duulay isagoo oo lugaha wax weyn ku qaatay markii aan sii eegana waxa aan arkay waxa uu qaatay inay tahay abeeso weyn oo aan la yaabay weynideeda shimbirkii intuu abeesadii qaatay ayuu la duulay anigoo arrintaas haddana la yaaban ayaan iska soo baxay waxaan bilaabay inaan buurtii ku wareego mise waaba buur aad u dheer meel laga degana aan lahayn xataa haddii aad hoos eegto dhulku kuu muuqan maayo markaas ayaan iscanaantay oo isku ciilkaambiyey maxaa kugu watay shimbirkan iyo isku xidhkiisaba waxaa ii fiicnaan lahayd inaan jasiiraddeedii iska joogo iyada oo ka fiicnayd meeshan cirka kulaalaysa ee meel laga degaba aan lahayn waayo jasiiraddu waxaabay lahayd geedo midhaheeda la cuni karo oo nafta kugu haynaya iyo webi biyo macaan leh oo aad cabbi karto laakiin meeshan geed laguma oga walaa biyaan lagu ogayn walaa midhaan lagu ogayn laa xawla walaa quwata ilaa billah markay sheekadu halkaa maraysay ayaa shahrazaad dareentay in subaxii la gaadhay markaasay aamustay oo joojisay